sheekh ilmahayga qaar ayaan ka shakiyay waayo aniga iyo hooyadood midna uma eka marka sheekh ilmahaas maxaan ka sameeyaa adigu hooyada iyo aabbaha mikeed u eg tahay waa bal laazim baa ilmuhu inuu waalidku u ekaado waa faham khalada waahay masaladaasoo kale waqtigii nabigeennay dhacday sal alla alay wasalam nin baa rasuulka u yimi sal alla alay wasalam kamaa fii saxiix albukhaari wa muslim marka wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay ow islaantaydii waxay dhashay wiil madow anigana iima eka hooyadiina uma eka marka wuxuu rabaa inuu diido yidhaahdo ma dhalin nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam geel ma leedahay haa buu yidhi geelaaga midabadiisu waa nocee wuxuu yidhi waa xumrun waa geel cascas hal fiiha min awraq buu ku yidhi ma ku jirtaa mid midabkeedu caddiin madow xigeenaya haa buu yidhi xaggee midabkaasi uga yimid taa iyada haddiiba geeligooda gudgududnaayoo cascasaa tan midabka goonigaa wadata xaggee ka keentay buu ku yidhi markaasaa wuxuu ku yidhi lacalahu nasacahu cirqun aw lacallahaa nasacahu cirqun waxaa dhici karta xidid hore inuu jiitay oo isirka asalkeedii hore hooyooyinkeedii ayayooyin iyo awowiye iyo xaggaa ay ka timid in xidid hore uu jiitay baa laga yaabaa buuri nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam haddaba wiilkaagana waxaa laga yaabaa lacalahu nasacahu cirqun isagana inuu xidid hore jiitay baa dhici kara buuri waxay ka muuqataa nebigu sal alla alay wasalam ninka geelu ahaa ruuxsiisa wuxuu fahmaya wax lagu fahansiiyaa ree magaalka haddaad maanta dhan geel uga hadasho maba fahmayaan geel marka maxaad ugu miisaalinba ninkaasi marka nebigu wuxuu ku fahansiiyey geelii uu yaqaanay buu uga keenay tusaale marka ilmaha hooyana wuu u ekaan karaa aabbana wuu u ekaan karaa intuu ka boodo wuxuu aadi karaa awooyo iyo ayayooyin intuu leexdo wuxuu aadi karaa adeero iyo abtiyaal buu aadi karaa intaba intuu ka boodo wuxuu aadi karaa aadamkii kore aadamkii aan ka soo bilaabanay buu hadduu doono aadi sidaas daraaddeed sax maaha madowgani waa midab sida nebigu sheegay sal alla alay wasalam aadam oon asal ahaan ka nimid baa midabadan lahaa carradii laga abuuray baa intaasuu midab ka koobnayd midab cad qayb baa ahaa casiinka qaar baa ahaa madowga qaar baa ahaa carrada intaasoo midable baa la ysku qasay aadam baa laga abuuray carruurtiisu marka waxay ku yimaadeen midabadii carradu ay lahayd bay carruurtiisu ku yimaadeen sidaasay marka u qaybsamaya tumaariinaa ku jirtay marka ilmuhu abtirka iyo nasabka tuhumo looguma diidi karo si fududna loogama saari karayo loogama anfin karayo hore baan uga soo hadalay in nasabka in ilmaha loo suga shareecadu ay aada u adkayso ninkii xaaskiisa laga zinaystay oo muxuu aha ilmihii lagu murmay nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam alwaladu lilfiraash walilcaahiri alxajar marba haddaad islaantan qabtood xadhig saxa kuu hayo ilmahana ay dhashay gogashaadii buu ku dhashay adigana suurtagal kaa yahay adaa dhalay haddaad diiddo oo tidhaahdo ma dhalin oo ilma aad dhashay aada abtirka u diiddo maalinta qiyaamada ilaahay markaad u timaaddo waa iska kaa xijaabaya waa dembi aada u weyn waay marka laguma fududaan karayo ilmahan midabkaygii ma laha iyo noome eka iyo nuunuudaasi wax soconaya maaha wallahu aclam jazaak allahu khayran wabaarak allahu fiik saa-iilka 14aad waxa uu leeyahay sheekh nin waa gabadh waxay leedahay sheekh nin baa i qabay 4 sano weligiisna ma uusan i guri geysan hal bil buu $50 ii soo diray oo 4 sano ka mid ah waxaan ogaaday inaanu rabin inuu i dhaqdo waan weydiiyey wuxuuna yidhi inaan ku dhaqdo ma rabo markaas baan ku yidhi ifur haddaanad i dhaqanaynin isagiina wuxuu yidhi ii soo celi lacagtii aan kugu mehersaday oo ahayd $1,500 haddii kale 3 maalin baan ku guri geysanayaa kadibna waan ku soo furayaa ama weligay waan ku qabayaa mana ku dhaqanayo mana ku furayo
sheekh lacagtaas 1500 ee uu dhahay ha la ii soo celiyo ma loo celin karaa maadaama oo uu leeyahay madaxaaga kuma siinayo ilaa aad lacagtii aan kugu guursaday ii soo celiso mise waan isfasaqi karaa ilaahay kariimka wuxuu leeyahay wacaashiruuhunna bilmacruuf dumarka aad qabtaan si wanaagsan ula dhaqma aayad kalena ilaahay wuxuu ku leeyahay faimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan ama wanaag ku haysta oo xuquuqdooda siiya ama si wanaagsan u sii daaya 4 sano inay ku nikaxsanaato oo 4 sanaba uu ka maqnaado oo 4 sano $50 bas u soo diray ma aha bil walba ma aha 4 sano $50 bas u soo diray bakhaylnimada ka badanta iyo gacan adaygiis 4 sano gabadha diyacnayd ee uusan biil la siinin ee uusan masruuf siinin ee uusan marasho siinin ee uusan meel dejinin oo 4 sano u sabraysay ayaa markii way ogaatay inuusan u soo soconin tir wariyo iska kaysiidaa ayuu haddana wuxuu leeyahay waxoogaagii meherkii igaga baxay ma aqaan 1500 ii soo celi khasiisnimo meeshii ugu dambeysay waay dulli way kaas in hadda la yiraahdo lacag hal la siiyo ha lagu madax furtana sax maaha waxaa lagu leeyahay 4 sano gabadha biilkeedii masruufkeedii baa lagu leeyahay markuu biilkii iyo masruufkii meesha soo dhigo 1500 ha goosto gabadhana ha furo laakiin xuquuqdii la igu lahaana waa la maqnaanaya gogashii gabadhan intaas muxuu ahay aad ku seejisayna iyadana way kugu maqan tahay haddana waxoogaagii yaraa ka baxay baad rabtaa iyada xuquuqdeedii dayacdayna wax ka soo qaad male gabadhaasi maxkamadda ha tagto indhihiisa 5 aan hays fasaqdo way u banaanta gabadha sharciga ha tagto hays fasaqdo ha cidda tirsato ninkay doonto ha guursato ciddii 1500 uu ka heli lahaa marka hal arko wallahu a'lam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك 15aad waxa uu leeyahay sheekh quraanka hadaan dhageysto ama aan indhaha ka akhriyo saama ku noqonaysa inaan akhriyay oo kale oo ma leeyahay ajirkiisi quraanka dhageysigiisa oo kaliya ajir baa laga helaa waa cibaado iskeeda u madax banaan wa idha quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu dhageysta oo u dhagraariciya quraanka marka la akhrinayo dhageysigaasi baa cibaado madax banaana ajir baad ka heli saas daraadeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama fi sahih wuxuu ku yiri Abdullah ibn Mas'ud igu dul akhri quraanka mubayba hamisa Abdullah ibn Mas'ud markaas wuxuu ku yiri rasuulka Ilaahay oo adaab lagu soo dajiyay miyaan ku dul akhrin adaab lagu soo dajiyay ورسولك صلى الله عليه وسلم يقول الأخري وحن جعلها إن عدان أنيق أهين كده جيستين سورة النساء وكب بالله دحنا مركو مريو وكا نبي تشوتشكور صلى الله عليه وسلم كدبنا نبي إلمين يارك مركا دجيسيغا سي أهانتي سي عبادوية وحكى له إسقى عبادة قوني دي ساعة قرآنك إن إيش إنتاد مريسو المرين كلية ماه عاد معاني ده تدبريس وفي رضا عضايات فيرين إيسو معنيه هذه بقلبي قاعد كصعدة وتفير فيرين إيسا تانا السجوري وتقران كوجه الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته تدبرك مرنا آخرين بالله سعوتا مرنا تدبر كليجي بنقول كرايون في رأت كتدبرت مركا لوضوا عبادات لكن آخرين أن تدبر لسعول هذه لها المرين أن تدبر لسعول أخرس ما أخرس كي مية هي أما لا أشر مية هداد ويديسو أخرس كواين العرب كنا دقاقو حروفتي آخر دوا هذا الحروف تي آخرين وعربك إيه أفك إيه أين دقاقين ومخارج تي حروف تا أذن كسو صارين أخرس لما يجي هذا مركا
fiiro mujarad ah oon tadabbur la soconin ayaduna macno ma samaynayso haddaad markaa dee barasho u soconin oo baranaynin oodan arday ahayn wallahu aclam